السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتحنهني أرجو السافلين حلقة كوباد عالمكي كوباد oo ah caalamka magaaleysiga ama caalamka tumashada. sidaynu hore u soo sheegnayba caalamkan ku dheeraan mayno ee inaha muhiimka ah ayaynu ka soo qaadanaynaa si aynu mucda iyo macnaha buuxa ugala baxno. toddobadii caalambe isha ayaynu la raacnay waxaana aynu ka dooranay caalamkaas aynu ku arkaynay dumarka xunxun. waxaynu ku dhacnay kirolar ama xamaaratadii oo ina qaaday weynuna u anbabaxnay dhankiisa. haddii aynu soo caga dhigannay caalamkii jidhka ganacsiga iyo tumashada waxaynu aragnay albaab qurxoon oo dahaba balse uu dahabka dushiisa dhiig ka buuxo oo ku dahaadhan yahay. haddii aynu ku soo dhowaanayna waxaynu maqalnay haweentaahood weliba taaha cufan oo badan. haddii albaabkii la ballaqayna waaba baradii magaaleysiga iyo hoygii tumashada. haweenka taahayaana hawshooda ayay haystaan waxaana ilinka midina ka heesaysaa midina ka jaasaysaa laba shaydaamadood oo yuhuudiyado ah oo qaabilsan dhanka reer magaalnimada. huga ay xidhan yihiin inta uu qarinayo in ka badanna wuu muujinayaa. indhaheenina xooga ayay ku yara maqnaayeen ileen aadmigu waa faduule balse waxa aan ku leeyahay inan wadi oo ha ku mashquulin shaydaamadahan yuhuudiyadaha ah. waxa ay buunbuuninayaan wixii ay kutubtooda ka soo akhristeen ee ahaa falalka shaydaamada waxaynu dhaadnay in magaaladu ay tahay Yurub waxaana inagu soo baxay koox haweena oo mudaharaad u muuqda waxaana ay siteen boodhadh ay ku xardhan tahay maalinta caalamiga ee gebagabaynta tacadiyaadka ka dhanka dumarka magaaleysta. waynuna dhex raacnay balse aynu uga gungaadhno gadaal ayaynu ka ogaanay inay tahay 17 Diseembar oo ah maalinta haweenka magaaleysta. waxaana ay ku doodayeen miyaanan ahayn aadami ma waxaana loo cadaadinayaa naloo liidayaa keliya inaannu baxdownay miyaanan xaq iyo xuquuq lahayn. erayadaas iyo kuwo lamida ayay ku hadaaqayaan. si kaysa ayuunbuu soo baxay nin ay aragtidiisii dumarkii la kala rooreen oo midiba dalow ka dhacday. show waa nin dumarka noocan ah gumaada inta uu ka dirayna 100 kor ayay u dhaafaysaa. waana nin la yidhaahdo Jari Ritchway. waxaanu ogaanay magaaladu inay tahay Amsterdam waxaana ku yaala sanam loo dhisay sharfidda iyo karaamaynta haweenka magaaleysta ee daafaha dunida ku dhaqan. sanamkaasna waa astaamaha ugu caansan ee magaalada Amsterdam ee caasimadda Holland. dowladdaasina haweenkaas way sharaftaa balse waa wax ku kooban Holland iyo Jarmal iyo Sweden. waxaynu maqalnay qaylo iyo sawaxan xooggan mise waaba antikhristos. waa antikhristoskii ay ka faallootay injiishu waana sida ay u sheegtay oo waa dugaag 7 madax leh dhabarkiisana waxa saaran gabadh dhar qurxoon iyo dahab ku dahaadhan weyna magaaleysataa. iyaduna waa gabadha lagu xusay injiisha ee loo yaqaanay magaaleysatadii Baabil. waa hooyada haweenka tunta iyo dumarka xunxun ee caalamka oo dhan. waxa ay sidataa koob ay ku jiraan dhiiggii dadkii wanaagsanaa iyo mu'miniintii iyo xumaantii aadamaha oo dhammi ay ka buuxaan. wayna cabbaysaa iyada oo si jees iyo dhoola caddayn la u cabbaysa. balse talow maxaa iyada saaray dhabarka antikhristos? maxaase antikhristos Amsterdam keenay? waxaas oo dhan waxaad fahmi kartaa haddii aad kitaabka injiisha ama baybalka akhriday uun. sikadiisa ayuun baynu u dareemaynaa inaynan magaaladiiba joogin. haddii aynu cabbaar baa la daymoonayna waxaynu ogaanay inay tahay magaalada Phnom Penh ee caasimadda Cambodia. waxaynu magaalada ka joognaa qaybta loo yaqaano Red Light District ama xaafadda leedhka cas. magaalooyinka caalamka oo dhammina way leeyihiin oo waa suuq ay ku yaallaan baararka duugitaanka iyo magaaleysigu. waxaana ay leeyihiin leedhar cascas oo lagu garto. ruuxa meel fog ka arkaana goobtaba casaan ayuu moodayaa. waana xaafadaha aynu Soomaali ahaan u naqaano tagsiga cad. waxay inoo gacan haadisay oo si soo jiidasho leh inoogu baaqday mid ka mid ah haweenka tunta. markii aynu u gallayna howlihii ay u baratay lamaynaan soo hadal qaadine waynu waraysanay. qisadeedii ayayna dabada ka gashay. gabadhan waxaa la yidhaahdaa Somali Mam oo afka Cambodia uu macnaheedu yahay siliskii ubaxa ahaa ee ku dhex lumay kaynta. iyada oo sheekaynasana waxa ay leedahay waxaan ku noolaa tuulo yar ma xasuusto hooyaday iyo aabbahay. waxaan ku gaadhay 10 jir mutulayaasha tuulada dhexdooda. waxaan la noolaa nin la yidhaahdo Taamaan iyo xaaskiisa. maalin ayuuna oday igu daray oo uu igu yidhi
odaygana yaqaana waalidiinta halka ay joogaan oo ku geynaya. Anna si farxad iyo raynrayn leh ayaan u soo raacay oo gacantiisa uga buuxsaday. Mana andhaadin inuu taamaan odaygan jaariyad ahaan iiga iibiyey. Aynu u soo laabano Soomaali maam ee bal aynu dhanka kale eegno. Waxaynu tagnay jidka u dhexeeya Berlin iyo Prague ee Jarmalka, waxaana jooga baabuur shaaximan oo xamuul sida. Waa goob ay ku nastaan darawalladani, sababta oo ah waxa ay ka helaan baradho shiilan oo jabisa iyo haweenka magaalaysta, waxaana ay howlahaas oo dhan ku qabsadaan sixir aad u jaban. Jidkaasna waxaa la yidhaahdaa Highway of Cheap Love ama jidka jacaylka jaban. waxaana meel ka socday shir ay wateen dumar, mise waaba ururka caalamiga ah ee xuquuqda magaalaysatooyinka ama International Committee of Prostitutes' Rights. waxayna ku doodayeen in magacan magaalaysato uu yahay magac lagu liidayo, shaqo xunna aanay qabanin, ee ay yihiin sex workers ama shaqaale galmeed. waxaynu haddana si kedisa u aragnay Karl Marx. waa nin aan wax diina aaminsanayn ee aaminsan walaxowga ama materialismka ama maadada. waxa uuna ina leeyahay magaalaysigu waa natiijo asal ahaan ka dhalatay raasamaaliyadda duudsiga badan, waana in lasoo gebagabeeyaa magaalaysigan. waxaanaan taageerayaa aragtida kullidiga tumashada. ninkii magaalaysatooyinka nibca ayaa hadalka qaatay. qolyihii naas u doodaya magaalaysiga waxa aan leeyahay, haddii ay tumashadu shaqo tahay oo haweenka noocan ahi ay shaqaysanayaan, dee xaasaskiinna iyo hablihiinna keena ha shaqaystaane. hadhow markaad shaqada ka soo rawaxdaan ee aad sii qaadaysaanna, haddii ay hawshu la yaro dheeraato suga inta ay hawsheeda si buuxda u soo qabsanayso ee macmiilkeedaa soo qancinayso. idinkuna haweenkow, marka uu ninku aado goobahaas ee uu soo magaalaysto, marka uu dib idinku soo laabto, ha ka xumaanina ee ka soo qaada inuu inan meel ice cream ku iibinaysa ka soo iibsaday, ilan iyaduba waa inan shaqaynaysee. Soomaali maam ayaynu u soo laabanay oo sheekadeedii halkii ka sii wadatay iyada oo ina le. waxaanu soo gaadhnay jidka wada baabuurta ah. anna waan baqay maadaama aanan weligay baabuur arag. odaygii ayaa dharbaaxo igaga gooyey, kadibna inta uu gaadhi igu riday ayuu albaabka ii xidhay. waxaanu tagnay odaygii tuuladiisii, wuxuuna ii soo gatay jaariyad ahaane. waxaan bilaabay inaan gurigiisii ka shaqeeyo, balse mashaqaa ilaahay kaaga dhigaya. odaygaas noloshiisuba waxa ay ahayd khamri iyo khamaar. habeenka uu khamriga waayana usha baambooga ayuu igu muldhin jiray oo dubka iyo diirka igu kala haadin jiray. kadib jidhkaygii wuu awood gabay. dawliska aan biyaha ku soo qaadana garbahayga ayuu liciifiyey oo liiday. badanaana waan la kufi jiray biyaha markaan soo sido. wuu i garaaci jiray haddii aan suxuunta maydho anoo aan biyaha soo dhaamin, wuuna i dili jiray haddii aan biyaha soo dhaamiyo aniga oo aan suxuunta maydhin. aad ayuu ii nabcaa. maalmihii dambena waxa uu bilaabay inuu reeraha u soo shaqeey dhaho si uu isagaga kay beego lacagta khamrigiisa. waan weynaaday. odaygiina wuuba i damaaciyey. anna waxaan uga firdhan jiray dibadda, waxaanaan seexan jiray jeexa. maalin ayuu duqi iiga dirtay nin indho yar ah gaastii faynuuska. ninkanna waan aqaanay oo markasta gaasta waan ka soo qaadi jiray, balse waxaa dhacay markan wax waxyaabihii hore ka duwan. ninkii wuu i kufsaday, aniga oo dhiiggii gashaantinimo iga socdana waxaan u cararay dhanka kaynta. halkaas ayaanan ku soo oohin dhammaystay. gadaal ayaanan ka ogaaday inuu duqani ninkaas ka iibiyey bikronimadayda si uu ninkaasi uga cafiyo daymihii isdulbaxay ee uu ku lahaa duqan. Cambodia waxaa laga aaminsan yahay ninka bikro jabiye inani waxa uu helayaa caafimaad buuxa iyo cimri dherer. odaygii waxa uu i keenay magaalada Phnom Penh, waxaana uu ii keenay gabadha baarkan haysata. halkaas ayaana noloshaydii lagu soo koobay. waxa aan noqday waxa loo yaqaano sex slaves ama addoommada galmada. kadib waxaynu weydiinay gabadhii, oo haddaa maxaa iminka ku baday inaad daaqad dadka uga gacan haadiso oo aad adigu u yeedhato oo soo jiidato. halkii ayay haddana sheekadii ka sii bilowday iyada oo ay ilmadu ka burqanayso.